shirkan jaraa'id ay qabteen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee sanadka 2016 ayaa waxa ay uga hadleen waxyaabo u qabsoomay muddadii ay shaqaynayeen sidoo kalena ku dhawaaqay in inta badan maamul goboleedyada haatan dalka ka jira ay soo gudbiyeen xubnihii aqalka sare u matalayay ayagoona ku baaqay in si degdeg ah loo soo dhameystiro xubnaha kale ee ka harsan aqalka sare ee Hirshabeelle, Banaadir iyo sidoo kale Somaliland. guddigu wuxuu aad uga fikiray aqalka sare dhameystirkiisa in lagu booriyo dowlad goboleedka cusub Hirshabeelle in ay soo dedejiyaan muddo gaaban ay ku soo dhameystiraan dhismaha aqalka sare. sidoo kale guddigu wuxuu Somaliland ka codsanayaa in ay dhismaha aqalka sare ka qayb qaataan sida ugu dhaqsaha badan. arrimaha aqalka sare haddaan dib u milicsado waxay ku soo dhamaadeen marka aad fiirisid waqtigii loogu talagalay hal mar kuma wada dhicin laakiin way isdaba socdeen oo midba midka kaleeto maalin iyo laba ayaa u dhaxaysay iyadoo loogu talagalay marka hore in ay hal mar wada qabsoomaan. halkaas waxaa loo jeedaa hanaanka doorashada ee Soomaaliya ka dhacayo wuxuu ka dhacayaa duruufo kala duwan oo ka jira gobollo kala duwan oo dalka ah. gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban Abukato Umar Cabdulle Dhagay oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in ay bixiyeen kaararka aqoonsiga iyagoona sidoo kale ay soo gabagabeeyeen kaararkii loogu talagalay warbaahinta. guddiga doorashadu si uu xaqiijiyo doorashooyinkan aan sheegayno inay dhacaan inay si hufan doorashada u dhacdo waxa uu diiwaan geliyay isla markaasna siiyay kaararka aqoonsiga in ka badan 200 oo korjooge oo isugu jira korjoogayaal caalami ah kuwa gudaha warbaahinta gudaha iyo dibadda kuwaas oo qiimeynaya isla markaasna ka soo saaraya warbixino muujinaya in doorashadu u dhacday si xor iyo xalaal ah. guddiga doorashadu waxa uu shaaca ka qaadayaa uu ogeysiinayaa inay dhamaatay marxaladii diiwaangelinta iyo bixinta kaararka korjoogayaasha gudaha iyo dibadda. sidoo kale waxaa la soo gabagabeeyay diiwaangelinta iyo bixinta kaararka bahda warbaahinta gudaha iyo dibadda. arrintan ayada ah muddo dheer ayaa website-ka lagu baahiyay in ay ka qayb galaan ay soo qortaan araajidooda intii soo qoratay waa la siiyay. meelaha qaar waxaa jira in korjoogayaasha gudaha ay aad u badan yihiin qaybta waliba bulshada rayidka ah iyada oo la fiirinayo in doorashadu ay ka dhacayso goobo xadidan oo 6 goobood ah oo dalka ka mid ah sida Garowe, Xadaado, Xamar, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo mid walba oo ka mid ahna ay lahaan doonto 6 goob ilaa 8 goob codeed 8 goob cod bixin Baydhabo baale inta kale 6 iyo 5 bay leeyihiin. waxaad qiyaasi kartaan in goob kasta codka laga bixinayo qol yar inay tahay. Farxii Maxamuud Yuusuf, Somali TV, Muqdisho.